بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii dhambaal oo aynu ku soo qaadan jirnay isbuuciiba hal mar arrin ama dhacdo ama mowduuc aynu isleenahay markaasi waynu u baahannahay. maanta waxaynu soo qaadanaynaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala maalin islaamka qaali ku ah. usbuuciina soo martaa hal mar, bishiina soo martaa ugu yaraan 4 jeer, sanadkiina soo martaa in ku dhow 50 jeer. وانا maalinta jimcaha waxaan leenahay aljumca waa yawm cibaada, waa maalin cibaado, waana maalin ilaahay subxaanahu wa ta'ala acmaal fara badan uu dhexdeeda dhigay. waana sida ku ansaxday xabiibkeena maxamed calayhi salaatu wasalaam kama fi saxiix muslim inay ka lumeen oo laga lumiyay oo la dhaafiyay inay ku hanuunaan اليهود والنصارى maalinta qiimaha badan leh cidda heshay ee ku guuleysatay ee ilaahay u waafajiyay inay tahay ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. wuxuu rasuulkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay adalla allahu can aljumcati man kana qablana fakana lilyahudi yawm as-sabt wa kana lin-nasara yawm al-ahad فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. حديث كاس إمام مسلم سوري نيو ورسول كريم محمد صلى الله عليه وسلم كتل مامي إن مالين تاسي إلهي سبحانه وتعالى وكلمي تدكينا ينقهري وأنا هلين ويهودي وحي كدكتين عيد يمانين أوينيا صبتي نصارى كريستانا waxay ka dhigteen maalinta xada. ilaahay markii naga wina keenay بعد اليهود والنصارى wuxuu nagu hanuuniyay يوم الجمعة maalinta jumcaha. marka يوم الجمعة waa maalintii uu xabiibkeena maxamed ku tilmaamay fadliga ay leedahay خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. maalin ay cadeey soo baxdo maalinta ugu khayrka badan leh waa maalinta jumcaha. maalinta jumcuhu waa maalin in badan oo kamid ah dadka muslimiinta ay ku qaabileen hurdo iyo khasaare ama waxaan faa'iido lahayn. mararka qaarna laga yaabo dumarkii muslimiinta ahaa inay ku mashquulaan khayrkii wanaagii maalintan ay lahayd ka shaqeynta guryaha iyo arrimo kale oo laga yaabo maalmaha kale aanay qaban. aduu xaqi maalintan ay lahayd in badan oo kamid ah dadkii way ka mashquuleen qaflad iyo mooganaan baanay kaga dhaceen ama ay kaga sugnaadeen. maalintan haddii aynu garanayno qadarka iyo waxyaabaha khasaa'ista ay leedahay waxay keensan lahayd in fara badan oo maanta inaga mid oo dhexdeena ku dayacan inay guntiga dhiisha iskaga dhigi lahaayeen sida ay uga faa'iideysan lahaayeen ama uga gacan qabsan lahaayeen. imaam ibn qayyim alayhi rahmatullah ay zaad al-ma'aadka waxa uu leeyahay وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه. وحكم لها هديه النبي محمد عليه الصلاة والسلام وينينتا مالنتا يين لا شرفو عبادتك قارنا الله خالص يالو او لغا خالص يالو مالمها كلا اي كلا قار نقطه. وحلي ابن قيم عليه رحمة الله علماء waxay isku khilaafeen ma maalinta jimcaha ugu fadli badan maalmaha adduunyada mise maalinta carafo. ابن القيم عليه رحمة الله كتاب كيزا زاد المعاد wuxuu kaga waramayaa ilaa iyo 30 maziyo ama fadli oo ay leedahay maalinta. balaanu soo qaadano 10 fadli oo ay leedahay maalinta jumcaha. kow waa maalin ciid ah oo mutakarrir ah oo soo noqonaysa oo usbuuc kasta watan ay noo soo noqonaysa. bishii inta soo jeer bay soo noqonaysa. sanadkii inta soo jeer bay soo noqonaysa. waxa la xaaraantinimeeyay kow in soom madax banaan oo bila sabab ah qofku uu soomo isagoo arinta noocaas ku khilaafaya اليهود والنصارى
uguna xoogeysanaya daacaadka iyo cibaadooyinka laynoo sharciyeeyey maalinta dhexdeeda inay dhacaan inay qofku ugu xoogeysto. laba waa maalin cadeedii ay soo baxdo maalinta ugu khayrka badan leh. khayru yawmin طلعت عليه shams yawm الجمعة رواه مسلم. waa maalin fadligaa leh. saddex waxa ku jirta saacatu ijaaba oo rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay kama fi Bukhari wa Muslim fihi saacatun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'taahu iyyah. ma jiro saacad qofka muslimka la waafajiyo isagoo taagan oo tukanaya cibaadeysanaya ilaahay wax weydiisto ilaahay subhanahu wa ta'ala waa uu siiyaa waxa uu weydiisanayo. afar fadliga ay leedahay acmaasha maalintan la qabanayo oo rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu ku tilmaamay inay yihiin acmaal lagu helo ama lagu gaaro janno oo janno qofka u geenaysa. khamsun min amalihinna fi yawmin katabahu Allah min ahli al-jannah wa xawayaan qofka inuu booqdo qof xanuunsanaya inuu janaaso xaadiro inuu soomo maalinta soomka kaga soo beegmay isagoo sooman inuu jumcadii tago oo jamciisu ugu jumcadii inuu qoor xoreeyo. waa xadiis saxiixa sida Imam Albani fi silsilati al-hadith saxiixa oo ku tilmaamay marka soomka maalinta looga jeedaa waa soomkii sababta lahaa ama maalin ka horeysay ama maalin ka dambeysay. shan waa maalinta saacada qiyaamada ay dhacso wala taqumu saacatu illa fi yawm al-jum'ah rawahu Muslim. lix ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka dhigay maalinta jimcaha inuu kamid yahay maalmaha dambiga la tirtiro la baabiyo doonaysa dambiga laga tirtiro maalinta ka faa'iiso. wuxuu rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam leeyahay ma maydho qofku maalinta jimcaha oo isma nadiifiyo isma daahiriintu awoodo deeto saliid ma soo marsado diib iyo cadar wanaagsan ma soo sameeyo deeto ma soo baxo oo ma kala kaxeeyo laba qof deeto ma tukado hadii intaas oo dhan uu sameeyo wixii lagu qoray isagoo imaamkina dhageysanayaan hadlayn illa ghafara Allah lahu ma baynahu wa bayna al-jum'ati al-ukhra. qofka intaas oo acmaal soo sameeya ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu u dhaafaa jimcahan iyo jimcaha soo socda ee soo qaabilsan wixii dambi ama gaf ee ka dhacsay labada jimciintii u dhaxaysay. toddoba qofka u socda ee u lugeeya maalinta jimcaha isaguna wuxuu leeyahay fadli iyo ajar aad iyo aad weyn. al-jum'atu ila al-jum'ah wa kafaratun lima baynahuma wa ziyadatu 3 ayyam. oo akid xadiiskii mashhuurka kamid ahaa الجمعة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا جنبت الكبائر. marka xadiis kale Imam Muslim soo warinay isagna wajira rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo ku tilmaamay qodobka sagaalaad dhimashada qofku dhinto maalinta jimcaha ama habeenka jimcaha waa calaamad tilmaamaysa xusnul khaatima in qofkaasi la siiyay ama Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku arsaaqay xusnul khaatima. marka xadiiska إمام أحمد سوري نبا إنه تلمامية من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر. مركا قف كده فتنة القبر اللي جاي لي إلهي سبحانه وتعالى وناك في رمضان أي لطاني قدر كتبنات كم ذا فضائشة أمام الزياد كويلاد هاي ما أنت تشبعها أعماش الله السماية أما صدقة الله بحياة وأيك خير بدنت هاي صدقة ما ما كلا بحياة من القيم وحوليه والصدقة فيه صدقة ما أنت تشبعها لحياة بحياة. وبالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور فضل إلى هذه مانتني. إذا والله ليال مانتني وحوبها أنتهي إلى علم فرفضا وحوبها أنتهي كفايس فرفضا إنها سنكسو قبقبينيا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وبالله توفيق.